بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لالهيga qaaliga waani salaame adduunka meel walba ka joogtaan waa walaasha wanaagsan indhees kusoo dhawaada janaalkeyga maanta waxaan rabaa inaan reaction ka bixiyo ama aan ka hadlo heesta oo Sharma Boy iyo Salim Kaske ay soo qaadeen shahaadadu micno ma leh ayaa la dhahaa maxaa la dhahaa labadan fanaan ayaa wada qaadeen Salim Kaske iyo Sharma Boy insha Allah ila daawada asxaabteeda maxay wadaa sida u arkaysid muuqaalka codkeyga ayaan ku dul furay maahane waxaan rabaa inaan ka hadlo heesta uu soo qaaday maxaa la dhahaa walaalkeen Sharma Boy ama fanaankeena Sharma Boy sideedaba heestan wuxuu soo saaray isaga oo aad loo hadalhayo oo social media dhan la dhahayo Sharma Boy ayaa ardaydii waxbarashada yani dartiisa ugu wada dhaceen isaga ayaa waxbarashada inay ku dhacaan sabab u ahaa marka heestan magaceeda waxaa la dhahaa sorry shahaadadu micno ma leh sidaan ognahay run ahaantii waxaa jiro arday badan dhalinyaro badan oo 12 sano soo dhigtay dugsi soo dhiganayeen iskuul soo dhiganayeen yacni oo ilaa dugsi sare 12 sano ay kusoo bixiyeen 4 sano oo jaamacada haday ugu yartahay ama 6 sano ayay soo qaateen saas meeqa isku tahay 16 sano maxaa la dhahaa ama 18 sano ayay waxbarasho ku soo qaateen waqtigooda markii maanta ay isdhahayeen shahaadad qaadatay shaqaad helaysaa hooyadaadi kugu daashay ayaad horumarinaysaana waxaa jiraan inta ugu badan imisaan aqaana majority oo shahaadooyinkooda iska barkan meeshan waxaa shaqeyso wax qabiil dhahay Soomaali hadana qabiil ayaa lagu ibtileeyay run ahaantii ilaahay taas naga soo madooweeyo waxaa laga yaabaa qofkii shahaadada haystay oo dhalinyarada ahaa oo inta soo sano cimrigiisa tacliin ku soo dhameeyay ayaa mid baadiye kiimida waxba aqoonin oo qalin iyo buug sida la iskugu qabto garanayna ayaa shaqo clever la siinayaa ayaa waxaa la siinayaa mid aanan waxba soo baranin oo buug iyo qalin meesha laga qabtaba aqoonin ayaa shaqo kaalis kaarga gaari iska wadanayo calashaan in adeerkiis ayaa xil haayo walaalkiis ayaa wasiira adiga kuleyba qof yacni xafiis ayaa wuxuu u fadhiyaa qof isaga qaraawe ay yihiin that's why ayuu shaqada ku helayaa waxaa laga yaabaa wax yar in private oo iska soo dhiso maxaa la dhahaa af Soomaaligaas uu qori karo just tacliin kaleeto uunan sii laheenin wax tacliina marka shaqana uu helayo dhalinyaradii oo inta soo sano kusoo daalaysa waxbarashana ee shahaadadooda barkanayaan meel walba markii la tagaana ee shaqo ku waanayaan taasoo kaleeto ayuu arkay maxaa la dhahaa taasoo kaleeto ayaa sababi kartan heestan inuu dhaho shahaadadu micno ma leh horta shahaado micno way leedahay oo micno weyn ayay leedahay laakiin xagee ku leedahay markaan qurbahan aan joogno iyo wadamadan kaleeto oo adduunkan hormartay shahaado ayaad shaqo ku helaysaa hadaadan shahaado laheenina waxaad noqonaysaa laamiyada kuwa xaaqa iyo maxaa la dhahaa suuliyada kuwa dhaqo laakiin hadaa shahaado leedahay reer hebel maanta laguma dhahayo shahaadadaada ayaa shaqo fiican ku helaysaa mustawa fiican ku istaagaysaa laakiin anagoo shahaado leh ayaa waxaa la eegayaa reer hebel ma tahay maya hayahe shahaadadaada la noqo hadaaba lagu aqoonin oo meel magac la ka soo jeedino aanan qof wax yacni qof sareysa aanan aheenin oo kaleeto marka alcamam wallahi Soomaali hadaanahay qabiil ayaana dilooday adduunkeena qabiil ayaan ku burburinay wadankeena horumar lahaa dhalinyarada been ma aha shiid iyo waxay la joogaan wax la'aan iyo marka insha Allah taasna ilaahay waxaan dhahayaa hanaga madooweeyo oo qabiilkan qabiil wax fiican ma ahan ilaahay hanaga madooweeyo qalbadeena Allah isku furo asxaabi heestii la daawada bal waranigu daaliyay salaamu calaykum أنا لشوفه جاب كشلين ماله هلو بوشو شهادة معنى ماله هشقيسو نيمول بنكي أنا وليستو نبضكم مجدين نقدايا سومالي يودن أنا لاتو وحناي هالنق علنكنا هالنوع عوال نور أنا دحيو نيمول بنكي أنا وليستو نبضكم مجدين نقدايا سومالي يودن أنا لاتو وحناي هالنق علنكنا هالنوع عوال نور هنو دحيو ودنكو شقة ماله هلو يلو nin walba ninkiisa ha nooleysto nabada kuma jirtee naga daaya waa waxa hadda ka soo hadlay Soomaalida waa waxa ay ku ibtileysan yihiin marka Soomaalinimada ha shaqeyso Soomaalinimada hana mideyso hadaad wax haysid adiga oo xil aad haysid
walaalkaaga shahaadadiisa u qiimeey intaasoo sano oo dugsiga soo dhiganayay ku qiimeey oo shaqada ku sii not inaad qof jaahila wax isku tiina wax siisid 2005 midkii loo shiday kii shala galab kuwii ugu shube been sheeg shanta sano oo laqe golaha shacabka shaki nagu matalaan codka bulshada kuwa shabaqa u dhige mooshin isu imaada shir hooyo shilimaad haddana waaba shib shantan reer hebel shanta kale reer hebel shanta xigta reer hebel waaba shan waaba shan waaba shan wadanku shaqa male